qabriga iyo qiyaamaha iyo horjoogsiga ilaahay oo qofku xusuusnaado sabab bay u tahay in qalbigiisu qoyanaado cabsi allana ay ku jirto macaasidana uu iska ilaaliyo waajibaadkana uu ku dhiirado dadka iyo waxoodabana uu nabadgeliyo tudhaalana uu yeesho hadduu intaaba ilaawana ayaan darrana waa u dhammaatay khayrna laga sugi maayo saynu walaalayaal ogsoonnahay gurigan iminka aynu deganay ee duhurka aynu u qada doonanayno guriga ku xiga waa qabriga waa hubaaltaas qofka idhaahda kuma xigo isagaa sheegay halkuu duulayo haddii qof iminka la idhaahdo gurigan aad ku jirto waxaad uga guuraysaa gurigaa kale ee ama aad dhisanayso ama laguu dhisayo gurigaasaad u guuraysaa adiga iyo reerkaaguba degaysaan haddii la idhaahdo naftu duldhigaa saynu ogsoonnay guriga si aad u wanaajin lahayd qurxintiisa adkayntiisa nadaafaddiisa raaxadiisa lacag wuxuu hayana wuu u quudhaa fii islaaxi haada albeyt gurigaas siduu u hagaajin lahaa waxaa laga yaabaa kabuhu inay kaga madhaan siduu ugu sii dhidiiqinayo ee maalin waliya habeen walba u eegayo shaqaalaha ugu wareerinayuu leeyahay halkan maydaan hagaajin iyo halkan waa xumayseen iyo heshiiskeennu caynkan mu ahayn macruuf weeye waa kan kirada ah kaad uga wareegaysa ama aad dhisanaysa waa gurigii adduunyada si aynu ugu dadaalaynaa bal haddaba haddaynu hubno guriga kan ku xigaa inuu xabaashaya ee maqsinkaaga hurdada iyo fadhiga intoo daahyada laga gooyo albaabada loo laabo naxashka halkaa yaallee biraha ee bilaa naxariista xadiidkaa lagaa saari doono oo xataa aan tudhaalo lahayn sariirteenna waxaa intay ciiraysa waa idinka arkay naxashkaasina jinaasadda jidhkeedu googoynaya markaad iminka sii eegteed sii dulmarto xataa looguma talagelin inuu noqdo mid yaro nafisahoo meydka la daaca ka laynagu qaadayaana waa kaa guriga hubaashe kan hadda ku xigaana waa qabriga marka waa laga maarmaan maxaynu ku goglaynaa maxaynu ku iftiiminaynaa maxaynu ku mutaysanaynaa jannada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu halkaa ka soo iftiiminayo ama ka soo butaacinayo biyaheeda iyo barwaaqadeeda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo ahaa khalqiga kii u fadli badnaa kii u cabsida badnaa ilaahayna uma ballan qaaday jannadiisa asxaabtiisa wuxuu ku tarbiyayn jiray marka qof la aaso inay halkan aada ugu fiirsadaan aad oo aanay kana ordin isna ilowsiinine qabriga aada ugu fiirsadaan kolkaasaa intuu dul fadhiistaabuu xoogaa aamusayay rasuulku sala allahu calayhi wasalam isagoo fikiraya si dadka indhahooda uu soo jeediyo iyo quluubtooda waxaa odhanaya istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu tahbiit fa innahu al'aana yus'al walaalkiinanaad diinta ku walaalahaydeen ilaahay dembi dhaaf u weydiiya maanta waxa uu ugu weyn uu idinka martiya waa istikfaar inaad dembi dhaaf ilaaha weydiisaan wasaluu lahu tahbiit inuu ilaahay kelmaddii sugnayda aayaddu sheegaysa ku sugee tawxiidkana oo imtixaanka aanu ku fashilminna ilaahay u weydiiya buu nebigu odhanaya calayhi salaatu wasalaam rasuulku aad buu ilaahay isticaado uga weydiisan jiray macnaa ilaahay buu aada uga magan gelay cadaabka qabriga asxaabta iyo ummaddeennabana wuxuu faray gurigaa aynu ku sii soconno in ilaahay laga magan galo cadaabkiisa rasuulku wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam xadiidkii abi saciid alkhudri uu warinayey saxiixu muslim ku sugnaa ummaddan iyada ah qubuurta waa lagu balaayaynayaa waa lagu ciqaabayaa waa lagu kadeedayaa falowlaa anlaa tadfanuu ladacawtu allaha an yusmicakum cadaaba alqabri aladii asmacu minhu ciqaab baa ka jirta qubuurta ah haddii aanan ka cabsanaynin inaa is-aasi weydaanna ilaahay waxaan weydiisan lahaa inuu xabaalaha idinka maqashiyo waxaan ka maqlayoo kale anugu waxbaan ka maqlayaa dig iyo demta ka baxaysa xabaashaa waan maqlayaa gudaheeda marka ilaahay ou maqashii baan odhan lahaa laakiin waxaan ka yaabaa inaa meydka bannaanka ku tuurtaan buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam
ثم أقبل علينا بوجهه فقال انتو نقصوا جيد سيدي نبي سيدنا أيها وحول تعوذوا بالله من عذاب القبر مركاسان نعوذ بالله من عذاب القبر فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر وإلهي كم مغنقل عذاب القبر إلهي كم مغنقل أيها الرسول كل أصحابتي ومضى وقفض لبضمي وقريها آخرك أصوه الرأيه markaynu ka anbabaxna gurigan aynu degannahay in ku xaroonayno Uthman bin Affan waynu soo xusnay halka marka uu yimaadaynu ilmeyn jiray ilaa garkiisu uu qoy jiray markii la weydiiyay wuxuu nabi Muhammad baan maqlay isagoo leh inna al-qabra awwalu manazil al-akhirah guriyaha aakhir u soo horeeya qabrigaas oday iyo islaan iyo madax iyo raaciyad cid waliba ay galayso hadduu qofku halka ka nabad gala wixii ka sii dambeeya uu ka sii sahlan هدو كان نبتقلي وانا فما بعده أشد منه وحا كدن بيانا وكدرين وحا المتيسن بانا وركهين بلاي وسمعت رسول